oo weli waa sii socotay isqabqabsiga markii ay soo ifbaxday in farta laatiini lagu qorayo Soomaaliga waxaa mudaharaadyo ka dhaceen Soomaaliya oo laga soo horjeeday in lagu qoro afka laatiiniga waxaana dadka laga dhaadhiciyay inay ka soo horjeestaan in lagu qoro laatiiniga taasoo masaajidada laga iclaamiyay in shacabka ka soo horjeestaan waayo ay yiraahdeen laatiin waa laadiin oo micnaheedu yahay farta laatiiniga waa diin la'aan iyadoo loo tirinayay in farta laatiiniga ay tahay tan wadamada islaamka aana ahayn wax ku qortaan October 21 1969 markuu dalka la wareegay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxa uu dib u soo nooleeyay fikradii qoraalka farta Soomaaliga 21 January 1971 waxaa la dhisay guddiga afka Soomaaliga guddigan waxaa dhisay golaha sare ee kacaanka si ay u sameeyaan xarfaha ugu habboon ee lagu qorayo Soomaaliga guddiga waxa uu ka kooban yahay 22 xeeldheerayaal afka ah iyo laba la taliye xubnaha guddiga ayaa kala ah Shariif Saalax Maxamed Cali oo gudoomiye u ahaa Yaasiin Cusmaan Keenadiid Mustafa Sheekh Xasan Ahmed Cali Abuukar Yuusuf Xilsi Ahmed Muuse Xaaji Ismaaciil Galaal Cabdi Daahir Afey أو جامع عمر عيسى ذهب فارح حسن عبد الله حاج أبوكر عبد الله أردي حسن شيخ مؤمن محمد نور عالن محمد حسن آدم جهير حرسي مجن عيسى عمر أو نوح عبد الله حاجي محمود لكر بنا حداد عاقب عبد الله حسين شيخ أحمد كدر أحمد عطن حانجي محمد حاج حسين شيخ حرير عبد الرحمن نور حسي شير جامع guddigan waxa uu lahaa guddi hoosaadyo sida mid qaabilsan qorista qaamuuska kan taariikhda juqraafiga sayniska diyaarinta kutubta dugsiyada iyo naxwaha guddiga afka Soomaaliga ayaa farta Roomaanka ama Laatiinka in lagu qoro afka Soomaaliga sababtuna waxay ahayd maadaama makiinadihii xafiisyada yiilay ay teebka ay ku qornaayeen fartaasi Laatiinka muddo 22 bilood ah gudahood ayaa wax lagu diyaariyay buugaagta dugsiyada dhexe xarfaha hingaada afka Soomaaliga oo ka kooban 5 shaqal iyo 21 shibane si ka duwan sidii 1961 ma dhicin wax mudaharaadyo ah ama cadaadis ku yimid guddiga si farihii tartamayay midkood loo sooco sababtuna waxay ahayd xukunkii adkaa ee dawladii Maxamed Siyaad Barre markii la sameeyay dhamaan waxyaabihii loogu diyaar garoobay qorista afka Soomaaliga ayaa si rasmi ah loo shaaciyay qoraalka farta sanadkii 1972 howlaha la qabtay waxaa kamid ahaa dejinta naxwaha afka sida magaca falkaab magacuyaal sifo laakiin sidaasi oo ay tahay wali naxwaha iyo ebiyada afka waa mid qabyo ah una baahan howl badan waxaa iyana la qoray khaamuus hase yeeshee markii uu ku dhamaan waayay xilligii lagu talagalay ayaa wasiirkii hidaha iyo tacliinta sare waxa uu sii wadistiisa howsha dhameystirka qaamuuska u xil saaray Cabdiqaadir Faarax Bootaan oo ahaa nin ka tirsan akademiyada fanka iyo dhaqanka hase yeeshee waxa si weyn u caan baxay oo u fidiyay qaamuuskii uu qoray Yaasiin Cusmaan oo la soo saaray 1976 qaraar dawladda Soomaaliya ka soo baxay taariikhdu markii ahayd January 21 1972 afka rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliga uu yahay afka Soomaaliga maxaa tiri markii fartii la dhameystiray lana diyaariyay dhamaan agabkii loo baahnaa hadii ay buugaag ahaan lahaayeen iyo hadii naxwo ahaan ahaayeen ayaa waxa loo baahday in dalka iyo dadka lagu baahiyo waxaana sidaasi ku bilowday ololihii farta sanadkii 1972 ololahaas oo dawladda Siyaad Barre markii dambe ku baahisay dhammaan degmooyinka dalka dadka reer miyiga ah
ama reer guuraaga ah ayay wax u barteen. warbixinno ay hay-ado diyaariyeen waxaa lagu sheegay in ololaha uu kor u qaaday aqoonta dadkii min 2% ilaa 5%. xilliga ay jirtay dowladdii kacaanka waxay dugsiga lagu baran jiray farta Soomaaliya dhammaan maadooyinka manhajka ku jiray sida sayniska, xisaabta iyo wax kasta oo kale. sanadii 1912 waxaa dalka Djibouti lagu qabtay xaflad lagu xuseeyay 40 sano guuradii qoridda farta Soomaaliga. Soomaaliya waxa ay ku jirtay marxaladii ugu xumeed ee xagga midnimada. qowmiyadda Soomaalida ayaa muddo midowday xuskii maalintaas. munaasabadaas waxaa lagu dahrogay qaamuuska ugu weyn ee af Soomaaliga lagu qoro, kaas oo fikirkiisu uu lahaa madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele, isla markaana ay wadajir u diyaariyeen macadka afka ee Djibouti iyo naadiga qalinleyda iyo hal-abuurka Soomaaliyeed Somali Speaking Band Club. January 21, 2015 madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isagoo ka hadlayay xuska 42 guuradii ka soo wareegtay markii la qoray farta Soomaaliga sheegay in laga bilaabo maalintaas ay mamnuuc tahay in far aan ahayn tan Soomaaliga lagu isticmaalo xafiisyada dawladda haddii aanan markaasi xiriir lala samaynin cid dibadda ah. February 2015 madaxweynaha Soomaaliya iyo Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa Muqdisho ku dhex dhigay xarun goboleed lagu hormariyo luqadda iyo dhaqanka Soomaali weyn. waxaa lagu magac daray Akadeemiyadda Goboleedka Farta Soomaaliga. Xasan Sheekh ayaa maalintaas sheegay in arintaas lagula tartami doono luqadaha caalamka. amarka madaxweynaha oo ahaa in xafiisyada ay ku shaqeeyaan qoraalka Soomaaliga waxba lagama soo qaadin oo waxa wax walba waa sidii hore. xafiisyada dawladda inta badan war-saxaafadeedka soo gaaray idaacadaha maxalliga ah waxay ku qoran yihiin af Ingiriisiga. weli dawladda Soomaaliya waxay wadaa inay wax ku qoraan afka Ingiriisiga ama luqadaha kale, sababtana ilaa hadda la garanayo. wadan walba horumarkiisu waxa ay tahay in luqadiisu uu wax ku barto. hadduusa luqadiisu wax ku baranin horumar gaari maayo. fadlan haddaba commentiga noogu reeb fikirkaaga. waa inoo